kulanti wanaagsan saaxiibayaal kuna soo dhawaada DSTV waxaan warbixintan ku eegi doonaa dagaalka Israa'iil ka wado gobolka Deir al-Zur ee bariga dalkaasi Suuriya maxaa dhici kara maxaase wadooyinka ugu dambeeyay iyo wararka aan ka helayno ayaan idin soo gudbin doonaa marka horese muuqaalka la gareeya siina share gareeya si uu gaar asxaab badan waa mahadsantihiin sida aad noola faafiseen warkan aan ku bilowno diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa duqeymo culus ka fuliyay bariga Suuriya subaxnimadii hore Arbacada iyagoo sida muuqata bartilmaameedsanayay fariisimaha iyo baqaarada hubka ee dagaalyahanada Iiraan taageerto Daraasiin iyo dagaalyahano ayaa lagu dilay laguna dhaawacay halkaas Israa'iil waxaa loo daabacay 6 saac ka hor duqeymo culus oo dhanka cirka ah oo Israa'iil ka fulisay bariga Suuriya ayaa lagu sheegay inay ku dhinteen boqolaal dad ah Israa'iil ayaa bilowday boqolaal weerar oo ka dhana bartilmaameedyada military ee la xiriira Iiraan ee Suuriya sanadihii la soo dhaafay wakaaladda wararka Suuriya Zana ayaa sheegtay in duqeymaha ay ku dhifteen aagaga iyo nawaaxiga magaalooyinka Deir kormeerayaasha dagaalka ee mucaaradka ayaa ka warbixiyay ugu yaraan 18 weerar oo ka dhacay Deir al-Zur iyo sidoo kale xadka ay la wadaagto Ciraaq isagoo sheegay in dhowr baqaaro oo hub lagu dhuftay xarunta xuquuqda aadanaha ee Suuriya fadhigeeduna yahay Britain sargaal sare oo ka tirsan sirdoonka Mareykanka oo wax ka ogaa weerarka ayaa u sheegay wakaaladda wararka Associated Press in weerarada cirka lagu fuliyay xog sir ah oo Mareykanku bixiyay laguna bartilmaameedsaday taxanayaal dhowr ah iyo saraakiil ciidan sargaalka ayaa sheegay in baqaarada ay sidoo kale u adeegeen dhuumo shidaal oo loogu talagalay inay qayb ka ahaadaan taageerada barnaamijka nukleerka Iiraan waxay gubeen fariisimihii Iiraan ee Deir al-Zur ayuu yiri Umar Abdullah oo ah dhaqdhaqaaqe saldhig ku leh Yurub kana soo jeeda gobolka Deir al-Zur ee bariga Suuriya oo ka howlgala dhaqdhaqaaqa wadajirka ah ee warbixinta looga diyaarinayo dagaalada Suuriya waxay gubeen fariisimaha Iiraan ee Deir al-Zur ayuu yiri dhaqdhaqaaqahaasi duqeymaha ayaa yimid iyadoo xiisadaha kacsan ee gobolka ay sii kordhayaan isla markaasna ay jirto walaac laga qabo in Iiraan ay qaado weeraro argoosi ah oo ay uga gudanayso dilkii sanadka hor loo geystay generaalka ciidamada militariga dalkaasi Iiraan General Qasim Suleymani oo Mareykanku uu dilay Iiraan ayaa la filayaa inay weerar ku qaado si taas looga hortagana Mareykanka iyo Israa'iil ayaa dhaqdhaqaaqyo ka wada goobaha Iiraan ay ku xoogan tahay sida uu sheegay sargaal sare oo diiday in magaciisa iyo codkiisa loo adeegsado warbaahinta xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa duqeyntani talaadadii kala hadlay Mosaf Zajas Yosi oo ah sargaal sare oo ka tirsan Israa'iil Mike Pompeo ayaa isku dayay sidii Iiraan cadaadis xoogan loo saari lahaa Iiraanna waxay isku dayaysaa inay aarsato sargaalkii sare ee Mareykanku uga dilay duqeyntii oo la bartilmaameedsaday saraakiil sare oo ka tirsan ciidamada Iiraan sanad ka hor Iiraan waxay wacad ku martay inay aarsan doonto